taasi nooga soo diray magaalada Baydhabo. Magaalada Nairobi xarunta wadanka Kenya ayaa lagu soo dhaweeyay mid kamid ah musharaxiinta u tartamaya qabashada jagada madaxweynenimo ee maamul dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Soo dhaweynta musharaxa ayaa waxa ka qayb galay jaaliyada Puntland ee ku nool wadanka Kenya. Warbixinta ku saabsan waxay noo soo diray waryaheena Cabdiwali Xuseen Tawakal. musharax daahir mire jibril oo kamid ah musharaxiinta u tartamaya hanashada kursiga madaxweynaha Puntland ayaa habeenkii xalay ahaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaana garoonka caalamiga ee Jomo Kenyatta ku soo dhaweeyay jaaliyada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanada Puntland. soo dhaweynta musharax daahir mire jibril oo kamid ah musharaxiinta tartanka adag ugu jira doorashada dhawaan la filayay inay ka qabsoonto maamul goboleedka Puntland ayaa waxa soo dhaweyntiisa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee jaaliyada Puntland ee ku nool magaalada caasimadda ee Nairobi waxaana ugu horeyn warbaahinta la hadlay qaar kamid ah dadkii ka qayb galay soo dhaweynta musharax daahir mire jibril. waxaan soo dhaweynaynaa daahir mire oo ah musharax u taagan Puntland. aad baan ugu faraxsanahay ninka daahir mire la dhoo macnihiina uu ka soo qayb galo annagana xafladda noo sameeyo macnihii soo dhaweyntiisa aad iyo aad baan u faraxsanahay musharax waxaan leenahay soo dhawow. runtii daahir mire jibril aad baan u aqaanaa waa nin ku habboon xilka madaxtinimo ee Puntland oo aan leenahay maanta dee waa nin kaliya oo hanan kara ama wadi kara xilka madaxtinimo ee Puntland. waan soo dhaweynaynaa in badan waxaan ku hagar weynahay insha Allah inuu xilka madaxtinimo noo qabto sanadka soo socda hadii Ilaahay noo idmo. waxaan leenahay guul baan ku rajaynaynaa insha Allah kii ku guuleysta Allah nooga dhigo maadaama aan nahay reer Puntland qaran baan nahay qaran. waxaan u gablahaynayaa haagu lawa alle waxaan u gurbahantumo hoogoni igu yaa wagesi oo daahir wi hilangada almara wagesi oo daahir wi hilangada almara. intaasi kadib musharax daahir mire jibril oo qayb ka ah musharaxiinta u taagan qabashada madaxweynaha Puntland waxa uu shaaca ka qaaday in haddii uu ku guuleysto doorashada Puntland uu wax badan ka qaban doono xaaladaha adag ee ka jira Puntland. anigu waxaan u ordayaa xilka madaxweynenimada Puntland oo la qaban doono insha Allah bisha January 8 sanadkan soo socda muddo waxa ka dhiman 5 asbuuc. xilkaas waxaan u doonayaa Puntland waxay u baahan tahay nabad qof nabadda wax ka yaqaana oo nabad ka keeni kara 7 sano ayaan qaabka dagaalka ee Puntland ay ku jirto aan baranayay oo ah nidaamka insurgency-ga gorillaha iyo terrorism-ka ayaan maxaan ku yiraahdaa aqoonteeda leh marka waxaan aaminsanahay inaan nabadeeda keeni karo. waxaan kaloo aaminsanahay inaan ka shaqayn karo midnimada Puntland dhammaanteed oo ah midnimadii lagu aasaasay 1998 inaan keeni karo oo isku soo celin karo. waxaan aaminsanahay inaan dhaqaalaha Puntland wax weyn ka bedeli karo. waxaan aaminsanahay in dadka reer Puntland oo aqoonta leh oo banaanka jooga iyo kuwa gudaha joogaba aan u leeyahay karti iyo aaminaad aan ku soo celin karo Puntland oo ay markaas dadkeena ay wax tari karaan. Cabdiwali Xuseen Tawakal, Telefishinka Universal, magaalada Nairobi.